buugga darka maadda hordhac bismillaahi raxmaani raxiim u qosol nolosha iyana ha kuu qososhee miyaynaan qosol u baahnayn oo maxaynu ugu baahan weynay ilaahow ha noo waayin nolol bilaa qosol ah ummad kasta oo adduunyadani ku nooli waxay leedahay dhaqan hidde af iyo taariikh uu facba fac ka sii dambeeya u sii gudbiyo waxaanay ummad kasta raadraacdaa qoraallo ama farshaxan ay ka tageen facyaashoodii hore hab nololeedka noocaas ah ayaa ah ka laga dheehan karo jiritaanka iyo ilbaxnimada ummaddii leedahay bulshada Soomaaliyeed waxay ahaan jirtay bulsho reer guuraa ah oo aan waxna qorin waxna akhriyin hab nololeedka noocaas ah ayaa dhaliyey in jiil weliba la dhinto dhaqankii aqoontii iyo wixii uu hanti u lahaa sheekooyinkii murtida iyo maadda lahaa iyo suugaanta ayaad moodaa inay yihiin meelaha weli sii nool ee u baahan in hadda weel lagu shubo si jiilka soo socdaa u dhaxlo buuggani waxaa lagu soo ururiyey qayb yar oo ka mid ah sheekooyinka maadda iyo murtida leh ee bulshadeennu ku caano maashay waa sheekooyin cilmi badan xambaarsan oo ka warramaya waayo iyo wakhtiyo kala duwan waa sheekooyin ay wax badan ka baran karaan dhalinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhalatay haddaba akhriste waan hubaa inaad in badan qosli doonto fadlan la wadaag qosolka iyo farxadda inta aad wanaaga la jeceshahay weyna haraad baanina hayo ayay u cuntami weyday inuu reerka dhaafo iyadoon la waraabin dhanka kalena waxa uu ka eegayey sida aanay macquul u ahayn in ay reerka biyo ka wada helaan haddaba isaga oo oday kale oo sheekha oo safarka ka mid ahaa u afjaaqaya waxa uu ku yidhi qaryada qurbigeena ah qaliilu min almaay inooga soo dalbi ee shajarada diligeeda iska sii tadajoc taasi oo micnaheedu yahay reerka agteena ah ayaan in yar oo biyo ah inooga soo qaadiye geedka hadhkiisa iska sii yara jiifso sheekhii kale oo fahmay ayaa ugu jawaabay samcu wadaaca oo micnaheedu tahay waayahay raggii kale ee safarka ka mid ahaa oo u qaatay inay culimmadu digrinayaan ayaa safarkii iska sii watay sheekh diiriye iyo wadaadkii kalena reerkii ayay biyo ay cabbaan iyo kuwa ay ku weysaystaanba ka heleen safarkiina kaga daba tageen saddex ilaahii ridayda madow caanaheeda cadeeyow allaahu akbar islaan reer miyi ah oo aan weligeed tukan ayaa ilaahay soo hanuuniyey waxaanay bilowday inay waajibaadkii ilaahay gudato oo ay salaadii bilowdo wax aqoona diinta uma aysan lahayn laakiinse way hanuunsanayde way soo weysaysatay waxaanay salaadii ku xidhatay sidan ilaahii ridayda madow caanaheeda cadeeyow allaahu akbar afar diyaaraddii bariiska laga karsaday sida la og yahay dadka Soomaalida ahi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah oo noloshoodu ku tiirsanayd miyiga haddaba intii aanay ilbaxnimadan casriga ahi soo gaadhin geyiga Soomaaliyeed ayaa beri waxa ay diyaaradii soo dul martay qolo reer miyi ah waxay ahayd wax ku cusub horena umaysan arag way yaabeen waxaanay is yidhaahdeen malaha dunidii baaba la rogayaa markiiba inta culimmadii loo yeedhay ayaa laga karsaday bariis cad waxaanay ilaahay ka baryeen inuu ilaahay balaayadeeda ka xijaabo shan waxaa lagu goblamay waa tii gadhka lahayde nin maanso yahan ahaa oo jaajaalnimo lagu yaqaanay ayaa beri u yimi qolo ay geeri ku dhacday oo wiilkoodii curdeed wadkii helay markii geeridii loo sheegay ayaa halkii uu tiiraanyo muujin lahaa waxa uu meriyey afarlaydan gaaban isaga oo ka warramaya isba dhibaatada haysata oo ah in xoolihii ka baaba'een adhigiisii yahay qaar xanuun u dhintay iyo qaar ildaranba waxaanu ku jawaabay adduunyada dhibaatiyo naxdini kama dhammaadaane annaba mid baa dhicisay oo neef ka soo dhacaye ridii garo ridii geeso kala jeexan mar aan soo dhex maray garana way dhogor madoobayde waxaa lagu goblamay waa tii gadhka lahayde lix shaahii furinku cabay nin reer miyi ah ayaa beri waxa uu soo galay makhaayad waxa uu ka dalbaday quraac waxaana loo keenay xabad furina iyo koob shaaha xabaddii furinka ahayd ayuu dhex geliyey shaahii cabbaarna ku daayey furinkii baa shaahii oo dhan cabay oo dhammeeyey odaygii baa waxa uu u yeedhay wiilkii makhaayada ka shaqaynayey waxaanu ku yidhi waardeennoo keen koob shaaha wiilkii oo yaaban ayaa ugu jawaabay sownigii shaahaagii kuu keenay ma mid labaad baad rabtaa odaygii oo cadhaysan ayaa ku yidhi waar miyaad waalan tahay koobkii hore furinkaa cabaye ma anigaa cabay ileen sidaas uun buu calooshaydana u cabi lahaaye toddobo awowgaa la gub dheh tolow daankaba ma dhigtaa oday reer miyi ah oo abu xaraaro ah ayaa waxa uu soo fadhiistay meel siyaaro ah waxaa la bilaabay qaybintii shaaha waxaana laga soo bilaabay geeskii uu isagu fadhiyey markii koobkii u horreeyey loo soo fidiyey ayuu saluugay yaraantiisa kadibna inta uu tusbixii rogay ayuu ninkii shaaha qaybinayey ku yidhi anigu digrigii baan wadaaye i dhaafi horta sidii baana lagu dhaafiyey kooba koobkuu ka dambeeyo ayuu ka sii yar yahay waxaan wadaad ku dhowrayaa in loo dhiibo mid saydheere ah ama koob nin weyn waxay qaybintii socotoba oo uu isna yidhaahdo isii dhaafiya digriga meel fiican ii maraye waxaa loo dhiibay kii u dambeeyey oo ahaa koob aad u yar ahna kuwa yar yar ee bunka lagu cabo inta uu haddana saluugay ayuu yidhi weli digrigii maan dhammayne ii dhaafi aniga ninkii qaybinayey ayaa ugu jawaabay sheekh koobkana ugu dambeeye qaado sheekhii inta uu xanaaqay ayuu mar keliya koobkii fiiqsaday koobkiina inta uu si cadho leh u eegay yidhi tolow kii kan soo sameeyey muxuu uga dan lahaa awowgaa la gub dheh tolow daankaba ma dhigtaa sideed alla hoognay oo weli adhigii ma sidii buu u saalo dhigaa wakhti ku beegan lixdamaadkii ayaa gabadh reer miyi ahi waxay u shaqo tagtay dalka Yemen oo dad badan oo Soomaali baayac mushtar ahi ka shaqaysan jireen muddo markii ay halkaasi ku maqnayd ayaa waxa ay ka soo degtay magaalada Berbera isla maalintii xigtayna waxay u kacday reerkooda oo miyiga deganaa waxa uu gaarigii sii wadaba waxay reerkii u soo gashay goorfiida oo ay dumarkii adhiyihii lisayaan salaan kadib ayaa iyada oo diraca kor u qaadanaysa kana khashaafaysa xiradii xoolaha waxay dumarkii xoolaha lisayay ku tidhi alla hoognay oo weli adhigii ma sidii buu u saalo dhigaa sagaal ee hooyo waa sidee tani maba dhiiqayse beri baa gabadh reer miyi ahi waxay u shaqo tagtay dalka Jabuuti markii ay in muddo ah ku maqnayd ayay waddanka ku soo noqotay waxaanay u timid reerkooda oo miyi yaalay hablihii reerka waa la wada guursaday oo islaanta reerku miciin badan oo xoolaha la dhaqamay haysane waxay gabadhii gacan ka siisay hooyadeed lisidii adhiga oo inta ay galaan weyn soo qaadatay ayay dhankeedii ka gashay xeradii
gabadhii iyada oo sidii qof xoolaha ka baqaya kolba neef iska ilaalinaysa ayaa waxay lugta soo qabatay orgi weyn oo meel agteeda ah raamsanaya. Inta ay xiniintiisii tuujisay ayay si cod sare ah ku tidhi hooyadeed ee hooyo waa sidee tani maba dhiiqayse. 10. Maxaa horta sodohda keenay meel ninka inanteeda qaba gacantiisu gaadhayso? Beri baa nin inan la yaal ahi isagoo xoolihii soo xareeyey waxay isku dhaceen sodohdii. Cabaar markii ay ku yara qaylisay ayuu isna waxa uu ahaa nin dulqaad yare uu dhirbaaxo ku jiiday islaantii. Islaantii oo barooranaysa ayaa reerkii ku dhex dhacday. Odayaashii ayaa layskugu yeedhay waxaana la dhigtay gogol. Markii ay odayaashii geed hoostii iskugu yimaadeen ee gartii la galay ayaa oday ka socday dhankii sodohdu yidhi maanta arrin weyn baanu idinka fadhinaa waxaynu hore u aragnayna maaha xaajadani markaa xaal iyo xumaynba waanu idinka fadhinaa. Iyadoon hadal badan ba la odhan ayaa oday qoorgaab oo ka socday dhankii ninka sodohda dhirbaaxay inta uu kacay yidhi horta intaynaan wax kale ka hadal maxaa horta sodohda keenay meel ninka inanteeda qaba gacantiisu gaadhayso. Xaggii baana ninkii loogu garaabay xaajadiina ku dhammaatay. 11. Ilaahay inuu garsoore yahay waan ogaaye laakiinse inuu kuunyo ku badayo maanan moodayn. Beri baa nin geel jire ahi waxa uu u soo haasaawi doontay gabadh ay isku deegaan ahaayeen oo adhi la joogta. Markii uu u soo dhowaaday ayaa iyada oo sii jeeda oo xadhig soo haysa waxa uu kaga yimi dhanka dambe. Si uu uga nixiyo ayuu inta uu warankiisii la soo baxay ku ganay dhankeedii isaga oo islahaa ku ag dhufo nasiib darrose warankii gabadhii badhiduu ka haleelay halkii baanay ku qudhbaxday. Ninkii talaa ku ciirtay inta uu raadkiisii baabiyey ayuu meeshii isaga cararay. Inantii maalin dambe ayaa meydkeedii meeshii laga helay halkii baana lagu aasay iyada oo aan la garanayn waxa dilay. Muddo markii ay ka soo wareegtay ayaa ninkii oo maalin maqaaxi hortaagani waxa uu ku yara tiirsaday warankiisii nasiib darrose inta uu warankii ka hoos baxay ayuu badhida ka galay. Markii uu 2 cisho miyir laa ayaa waxa uu soo maaxday maalin saddexaad waxaanu dadkii ku yidhi ilaahay inuu garsoore yahay waan ogaaye laakiinse inuu kuunyo ku badayo maanan moodayn halkii buu ka qirtay inuu isagu gabadhii dilay uuna magteedii bixinayo. 12. Hooyo soo qub. Malka waxay ahayd islaan reer miyi ah waxaanay wax ubad ah dhashay hal wiil. Waxa ay had iyo jeer ku dadaali jirtay sidii uu inankeedu u noqon lahaa mid qayrkii ka roon. Marka ay adhiga listo 2 riyaad ee ugu caanaha badan ayay caanahooda siin jirtay waxaanay jeclayd in inankeedu koro oo uu noqdo nin xoog ah oo qayrkii iska celiya. Nasiib darrose wiilkeedu ma uusan noqon mid tamariya oo jidhkiisu diiro. Muddo markii ay sidaa ahayd ayaa maalintii dambe goorfiid ah oo xoolihii la soo xareeyey waxa ay malko listay ridii giiro oo ahayd rida adhiga ugu caanaha badnayd inta ay galaan caano ah oo xoorinaya inankeedii u fidisay ayay ku tidhi hooyo soo qub. 13. Sii wadwadi kari maynee kuli wada bir. Yuusuf oo ahaa nin geel jire ah ayaa beri tagay gaaf. Waa aroos miyi iyo xaalkiiye waxaa bilaabantay su'aalo iyo hal xidhaalayaal ay dhalintu isku xujaynaysay. Cabaar markii ay socotay ayay su'aashii Quule soo gaadhay waxaana la weydiiyey inta nooc ee uu gawaadhida ka yaqaano. Quule ayaa inta uu u kacay si ay kalsooni ku dheehan tahay ugu jawaabay dhiga dheere xaajiyad gaadhi ximaar iyo kaariyoone sii wadwadi kari maynee kuli wada bir. 14. Dhulka duub. Beri baa doob guurdoon ahi waxa uu haasaawe tagay gabadh gashaantiya oo ay isku beel ahaayeen. Cabaar markii la haasaaway lagana wada hadlay guur iyo in nolol qoys la wada dhiso ayay inantii ninkii su'aalo xujo ah weydiisay bal si ay u qiimayso inta uu garaadkiisu gaarsiisan yahay. Su'aashii koowaadna waxay ahayd gabadhii dhulka duub. Wiilkii waayahaye horta adigu ka kac. Gabadhii oo aad ugu qanacday sida fiican ee uu inankii ugu jawaabay ayaa haddana intay wiilkii dhagax u dhiibtay ku tidhi hooyo soo. Wiilkii waayahaye horta adigu calali. Gabadhiina sidii bay ugu qanacday jawaabihii wiilka gayaankeeda ahaa halkii baanay isku guursadeen. 15. Ruush maxaa noo keenay sownagii waa hore kala tagnay. Sanadkii 1977 oo ku beegnayd markii uu xumaaday xidhiidhkii u dhexeeyey Soomaaliya iyo dowladdii Ruushka ayaa Muuse Dheere iyo sarkaal Maraykan ahaa oo u wada shaqaynayay hay'adda qaramada midoobay ee Soomaaliya ay ku murmeen in dadka Soomaaliyeed wada siyaasi yihiin iyo in kale. Isagoo sarkaalka Maraykanka ahi ku doodayay inay Soomaali oo dhammi yihiin dad siyaasiyiina ayna adag tahay in la maamulo. Muuse oo taas ka soo horjeeda ayay sarkaalkii xaddi lacageed oo badan sharad ku wada dhigteen. Maalin dambe iyaga oo safar shaqo ugu kici timi magaalada Berbera ayaa waxay wadada kula kulmeen nin reer miyi ah oo adhi la jooga. Inta ay gaadhigii istaajiyeen ayay ku leexdeen waxaana dhex martay sheekadan. Ninkii Maraykanka ahaa waxaanu doonaynaa inaad naga iibisid neef adhiya ninkii reer miyiga ahaa. Oo yaad tihiin horta. Ninkii Maraykanka ahaa waxaanu nahay niman Ruusha. Ninkii reer miyiga ahaa oo Ruush maxaa noo keenay sownagii waa hore kala tagnay. Xaggii bay ninkii reer miyiga ahaa kaga tageen sharadkiina Muuse looga helay. 16. Haasaawe. Beri baa nin guurdoon ahi waxa uu haasaawe tagay gabadh ay isku beel ahaayeen. Goor casar ayuu u yimid inantii oo harar tolaysa una la joogo wiil yar oo 5 jir ah oo ay walaalo yihiin. Gabadhii si fiican ayay u soo dhaweysay ninkii guurdoonka ahaa halkii baanay sheekadii iskugu duba dhacday. Cabaar markii ay sheekadii u socotay ayaa gabadhii naqas ka fakaday inta ay wiilkoodii yaraa dhirbaaxday ayay ku tidhi waar nagala kac dhuusada waxyow edebta daran lii. Yarkii oo aan wax dembi ah samayn ayaa cayaartiisa iska sii watay. Muddo markii ay sheekadii u socotay ayaa ninkii haddana naqas yari ka fakaday isna inta uu yarkii madaxa ka dhirbaaxay ayuu ku yidhi waar naga daaba hasha balo ku dishe. Gabadhii oo la socotay in naqasku ka yimid ninka oo aanu yarka ahayn ayaa inta ay xanaaqday ninkii ku tidhi waar waan ku maqlayaa inay adiga tahay maxaad yarka u dilaysaa. Inta uu qoslay ninkii ayuu gabadhii ugu jawaabay waxaan moodayay in kolba keenii dhuusa uu yarka dhirbaaxayo. 17. Agaah. Awowgaa la gub. Waar wuxuu dhar badanaa ma sanduuq baa.
xilli ku beegan bartamihii qarnigii 20aad ayaa nin reer magaal ah oo in muddo ah ku maqnaa cadan waxa uu booqday reerkooda oo yaalay agagaarka Awaare oo ah deegaanka Soomaalida Itoobiya. goor fiid cawl ah ayaa isaga iyo rag kale oo ardaaga kulaalaya waxa ay u diyaar garoobeen salaadii maqrib. markii ay weysaysanayeen ayaa ninkii reer cadmeedka ahaa bilaabay inuu dharka culus ee uu xidhan yahay iska kala dhigo. waxa aanu isgarab dhigay bakooradiisii, haddana koofiyadii, haddana cumaamadii, haddana koodhkii, haddana laaskoodhadii, haddana shaadhkii, haddana khamiiskii. markii uu intaas iska saaray ee uu soo reebay surwaal garan iyo sharabaadadii ayuu u kacay dhankii saligii uu ku tukanayay. guulane oo ka mid ahaa raggii reer miyiga ahaa ee la joogay oo goorahanba la yaabanaa waxaan oo dhar ah ee uu ninku xidhan yahay iyo sida uu isagu ugu maran yahay macawis yaroo duuga iyo shaadh keliya ayaa inta uu madax qabsaday waxa uu yidhi agaa awowgaa la gub. waar wuxuu dhar badanaa ma sanduuq baa 18 alla maxaad ii toosiseen meel aydaan garanayn baan jooge. beri baa nin sheekha oo safar ahi waxa uu u soo hoyday reer jees cidla ah yaala waxaanu ku soo beegmay goor fiid ah oo markaas uun xoolihii la soo xareeyey. maadaama ay culimmadu tixgelin badan ku lahaayeen bulshada, sheekhu waxa uu rajaynayay in si fiican loo sooriyeyn doono, laakiinse taasi ma ay dhicin, waxaana loo keenay uun gorof caano ah halkii uu hilbo waaweyn ka sugayey. haddaba sheekhii oo saluugay habka loo sooray ayaa goor saqdii dhexe ah oo la kala seexday waxa uu la soo baxay toosh weyn oo uu haystay. inta uu goysii hoosta ka galay ayuu tooshkii shiday. urdoox oo ahaa curadka reerka oo meel sheekha agtiisa ah hurday ayuun baa arkay sheekhii oo siraatay. inta uu argagaxay ayuu u kacay dhankii guriga aabbihii waxaanuu toosiyey aabbihii isaga oo u sheegay inuu sheekhu yahay awliyo halis ah oo uu siraatay. reerkii oo dhan baa isku soo baxay waxaanay arkeen sheekhii oo siraadanaya. markiiba waxa ay soo qabteen wankii adhiga ugu maca oo aad yaabto inta ay macashu leeg tahay, xaggii baanay dhagta dhiiga u dareen, isla markiibana hilbihiisii dabka la saaray. reerkii oo naxsan ayaa sheekhii toosiyey si uu hilbaha u cuno. sheekha oo goorahanba dhagta kala socday ayaa inta uu soo booday waxa uu yidhi alla maxaad ii toosiseen meel aydaan garanayn baan jooge. 19 adeer timirtii hore badab loo waa. beri baa nin safar ahi waxa uu u soo dhaxay jees reer miyi ah, si fiican ayay u sooreen habeenkii iyagoo wan yar oo baraar ah u qalay. markii uu aroortii ka sii tegayey ayaa isna waxa uu siiyey kiish timira oo uu sitay. reerkii waxay garan waayeen timirtii iyo sida loo cunayo waxaanay u qaateen in loo baahan yahay in la kariyo. maalin kale ayaa nin kale oo safar ahi waxa uu u soo dhaxay reerkii. goor ay cawaysin tahay oo ardaagii la kulaalayo ayaa ninkii safarka ahaa soo saaray kiish timira kuna yidhi reerkii hooyo cuna timirtan. odaygii reerka ayaa inta uu timirtii dhinac isaga riixay yidhi adeer timirtii hore badab loo waa. 20 dalaal caliyey dhankaa ka maray. nin reer miyi ah ayaa beri u soo safray magaalada waxa uu watay dhowr neef oo adhi ah. markii laga iibsaday ayaa waxa uu reerkiisii u iibiyey raashin iyo wixii ay u baahnaayeenba, isna waxa uu gatay shaadh aad u dhalaal badan. maalintii dambe ayuu magaaladii ka soo caraabay waxaanu goor fiida soo gaaray reerkiisii. habeenkaas waxaa beesha ka jiray aroose, inta uu shaadhkiisii cusbaa xidhay ayuu arooskii tegey. sidii caadada ahayd ayaa cawaysinkii dhallinyaradii ciyaar qabsatay, isna waxa uu ahaa nin bootinta ku fiicane inta uu shaadhkiisii geed aan sidaa u sii fogayn saaray ayuu gabadh u maray. waxa uu ahaa nin guurdoon ahe inta uu sacab aad yaabto kaga dhawaajiyey ayaa isagoo hablihii la hadlaya waxa uu yidhi na waxaa sii dhalaali anigaa dhigaye dalaal caliyey dhankaa ka maray. 21 nin farro madhani fariid ma aha. 2 nin oo ilmo adeer ahaa oo wada deganaa magaalada Xarshin deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa midi ahaa nin raganimo lagu tuhmo halka ka kale aanu beesha u tirsanayn. haddaba ninkii liidnimada lagu tilmaamayey ayaa waxa uu bilaabay ka ganacsiga qaadka isagoo magaalada Jigjiga dameer qaadka kaga soo qaadi jiray. muddo kooban ayuu ku macaashay. halka uu dameer keliya ka keeni jiray waxa uu gaadhay heer uu 3 dameer ku keeno, waxa aanu dhistay 2 dergadood oo waaweyn. farihii dufan leh baa wax duuga ayay Soomaalidu ku mahmaahdaayeen. ninkii waxa uu noqday nin aad loo qadariyo oo reerkii uu ka dhashay magac ku leh, halka ninkii geesiga ahaa oo waqtigu ciilay aanay cidiba tirsan. hadda waxa ay sidii ahaataba ninkii geesinimada lagu tirinayay oo iska busaaradsan ayaa maalintaa kula weydiistay ninkii kale nasiib darrose waa uu ku hungoobay oo waxba ka muuhelin, isagoo cadhaysan ayuuna u gabiyey wuxuuna yidhi saaciidadu dameer iyo doqon iyo nin liitiyo dergadahay u jeceshay. 22 beeni raad ma leh. nin geel jire ah ayaa u yimid rag kale oo ardaa fadhiya oo ay isku beel ahaayeen. markii cabaar la sheekaystay ayaa ninkii geel jiraha ahaa nimankii kale ku yidhi waxaan maanta soo arkay wan badhi weyn oo badhidiisu buurtaas leeg tahay. nimankii oo u qaadan waayey hadalkii ninka ayaa mid ka mid ahaa raggii oo ninka geel jiraha ahaa ku yaqaanay inuu beenta sheego ayaa yidhi anna waxa aan maanta soo arkay dheri weyn oo ay 100 nin gudaheeda dhaqayaan. ninkii geel jiraha ahaa oo la yaabay sheekadan kale ee uu ninka kale keenay ayaa markiiba su'aalay oo talow dherigaa weyn maxaa lagu kariyaa. ninkii oo raba in uu geel jiraha u tuso inuu been sheegayo ayaa ku yidhi waxaa lagu kariyaa wankaa badhida weyn ee aad sheegayso. 23 naa soo baxa oo nala ciyaara. nin geel jire ah ayaa waxa uu maalin meel wado ah ka helay kartoon uu ku jiro khamri badan oo ka dhacay gaadhi ay wateen askartii guumaystaha Ingiriisku. weligii hore umuu arag kartoonkaas oo kale waa uu furay dhan walbana ka egay haddana ursaday. khamrigu waxa uu u urayay sidii dawo oo kale. ninkii reer miyiga ahaa waxa uu u qaatay inuu kartoonkuba yahay dawo maadaama uu sidii dawadii magaalada oo kale u urayo. isagoo tunka ku sita ayaa waxa uu la yimid reerkii. waxa uu qorshaystay inuu marka hore dawada ku tijaabiyo islaan ayaydii ahayd oo dada xanuun u raacay. goor fiida ayuu islaantii ugu soo galay buulkii ay jiiftay waxaanuu ugu bishaareeyey in uu wado dawadii ay ku caafimaadaysay. islaantii oo iska tabcaana ayaa inta uu quraaradii furay siiyey 2 furmugood.
markii sidaa uun xoolihii loo lisay ayaa islaantii oo dhowr sannaba dhulka taalay inta ay soo booday dhexdana maro ku soo xidhatay bannaankii reerka u baxday ciyaarna qabsatay iyadoo kor u hadlaysana leh naa soo baxa oo nala ciyaara reerkii ayaa waxay u qaadan waayeen islaantii da'da ahayd oo caawa sacab tumanaysa waxaa la weydiiyey ninkii islaanta waxa uu caawa siiyey waxaanuu u sheegay inuu siiyey dawadii cimriga yaraynaysay beeshii oo dhan baa isku soo baxday qof kastaana waxa uu ninkii ka codsaday inuu isna dawada siiyo waxaanu ninkii u sheegay inay dawadani qaali tahay oo cimriga bini'aadamka yaraynayso sidaa darteedna uu furkiiba siinayo hal neef oo adhiya 24 talow kolba ma mid buu subkay nin xoolo dhaqato ah oo alle duunyo badan siiyey ayaa habeen isaga oo safar ah u soo dhaxay reer miyi ah waa la soo dhoweeyey oo ardaagii baa darmo weyn loo dhigay goor cawayskii ah ayaa loo keenay xeedho garow ah oo subag labaad oo aan badnayn lagu daray nin xoolo badnaa oo subag iyo caano ku noolaa buu ahaaye isaga oo saluugsan sida subagga garowga loogu yareeyey buu yidhi awowgaa la gub talow kolba ma mid buu subkay 25 raadiyihii la gubay wakhti ku beegan horaantii qarnigii 20aad ayaa qolo reer miyi ahi meel waddo ah ka heleen raadiye raadiyuhu wuu shidnaa oo war baa ka baxayay markaasi waxa ay la yaabeen aaladan aanay hore u arag inta ay qaateen ayay la tageen reerihii markii xoolihii la soo hooyey ayaa ciroole iyo carruurba laysku soo baxay si loo daawado raadiyihii culimmadii oo dhana waa layskugu yeedhay dhowr neef inta la qalay oo alle bari la sameeyey ayaa isla meeshii lagu gubay raadiyihii 26 anigu ninkii waan iskaga imi waayo dhabar buu cunay dhaqankii hore ee Soomaalida waxa uu ahaa mid qiimo badan ku fadhiyey ragga iyo dumarkana waxay ahaayeen kuwa nolosha ay bulshada ku leeyihiin u kala qaybsanayd haddaba gabadh bil uun aroos ahayd ayaa iyada oo reer ku ducaystay waxa ay aragtay saygeedii oo inta uu hilbihii kale iska daayay hilib dhabar u badan cunaya inta ay yaabtay oo ay u qaadan weyday ninka dhabarka cunaya ayay halkii ka soo jarmaaday oo ay timi reerkoodii markii ay reerkoodii timi ayaa hooyadeed weydiisay waxa reerkeedii ka keenay halkii jawaab kale laga sugayey ayuunbaa ay tidhi anigu ninkii waan iskaga imi waayo dhabar buu cunay 27 maxay ka nugtaa amase ku nugtaa waraabe ayaa beri soo dacwooday waxaanu sheegay in sumcad xun laga aaminsan yahay oo xan iyo war aan jirin laga faafiyey waxa uu sheegay in aan aqoon fiican loo lahayn ee uu ka duwan yahay sida loo haysto ee ah in aanu ammaanada ku fiicnayn markii ay habar dugaag dhegaysteen ayay go'aan ku gaadheen in waraabaha laga daayo eedaynta isla markaasna loola dhaqmo sida xawayaanka intiisa kale loola dhaqmo laakiinse horta la tijaabiyo waxaa lagu yidhi waraabow hadalkaagu waa dow xaqna waad u leedahay in lagu aamino balse waa la hubsan dooneeye ka bilow hawsha aad sumcadaada ku hagaajinaysid ilaalinta hashan iyo nirigteeda yar ee ay dhashay ma lagugu yimid iyagoo badqaba mise sida la sheegayo waxyeelo u geysatay hashaas iyo nirigteeda haddii lagugu yimaado iyagoo badqaba waxaa xitaa lagaa bedeli doonaa magaca waxaana lagu bixinayaa amiin laakiin haddii loo yimaado adigoo hashi iyo nirigteedii yarayd waxyeelo u geystay magaca waraabe lagaa dayn maayo waraabe oo isku kalsooni ka muuqato ayaa u xaqiijiyey in uu yahay mid aamin ah oo wixii lagu aamino loogu imaanayo markii laga tegey ayuu waraabe wuxuu is adkeeyaba ishayn kari waayey wuxuuna goostay in aanu ku fogaanin hasha iyo nirigteeda ee uu raadiyo hab waxna uu ku yara cuno oo aanay cidna dareemin waxaanu ku tashaday inuu hasha ka goosto 4 naas oo keli ah waanu ka goostay cabaar kadib ayaa haddana uu gaajooday waxaanu nirigtii ka goostay 2 faruuriyood maalintii dambe ayaa waraabihii loo yimid waxaana lagu farxay in hashii iyo nirigteedii oo nabada uu hayo waxaana loo soo jeediyey ammaan fara badan goor fiidkii ah ayaa la damcay in hashii la liso markii gaawihii loo soo qaatay ayay hashii godlan weyday ninkii hasha lis islahaa oo yaaban ayuu waraabe la hadloo ku yidhi maxay ka nugtaa amase ku nugtaa halkii baa waraabe khaayinimadii ku caddaatay 28 biciidka aan dili doono nin ugaadhsade ahaa oo inta badan soo ugaadhsan jiray duurjoogta ay ka mid ka yihiin biciidka deerada garanuugta gorayada cawl iyo sakaarada ayaa aroor isagoo leebkiyo qaansadii qaatay oo ugaadhsi tegaya ayaa uu la sheekaystay afadiisii oo uur lahayd waxa ay ahaayeen lamaane isjecele isagoo niyada u dhisaya waxa uu ku yidhi biciidka aan dili doono yeesha aan ka jari doono lacagta layga siisan doono sabeenta aan ka soo iibin doono sumalka ay dhali doonto subaga badhidiisa laga shiili doono ayaad cabbi doontaa 29 geedi iyo caanihii geedi oo ahaa nin inan layaal ah ayaa beri reerkiisii iyo reerkii ay xididka ahaayeenba geedi galeen geedigii waxay ku jiraanba goor ay casar tahay ayaa ninkii geedi gaajo baani qabatay waxa uu hogaaminayey awrtii saabaanku ku rarnaaye inta uu joojiyey ayuu mid ka mid ah awrtii fadhiisiyey si uu dhiil saarnayd caano uga cabbo markii uu dhiishii furtay ayaa neyl yar oo awrka saarnayd ku soo dhacday oo ay lugihii la gashay caanihii geedi ayaa inta uu neyshii qabtay ayuu ka leefay caanihii intii uu neysha leefleefayey ayaa sodohdii soo gaadhay kuna tidhi waa geedi maxaa kugu dhacay inta uu weli hawshiisii iska sii watay ayuu ugu jawaabay canabey ma caanaha aan arkayaan cidlo kaga tagaa 30 ee xaaji dee kaalay aynu gaaladii laynee oday weyn oo duunyo badan ilaahay siiyey ayaa beri xaaskiisii ka dhimatay sidii dhaqanku ahaa waxaa reerkii ay xididka ahaayeen siiyeen oo ay xigsiisan uga dhigeen odaygii inantii gabadha ka yarayd oo 12 jir ahayd maadaama oo ay inantu aad u yarayd odaygii waxa uu gartay in aanu naagnimo u doonan oo uu u daayo uun hawsha reerka markii ay dhowr sano ka soo wareegtay ee gabadhiina kortay ayaa odaygii damcay inuu muraadkii dumarnimo ula tago waxaanu keenay fikradii uu hawsha ugu soo bandhigi lahaa goor fiida ayuu u yeedhay waxaanu ku yidhi mar kasta oo aynu isku tagno waxaynu dilaynaa 10 gaal markaasi aynu ajar badan u shaqaysano waa inaynu isku galmoonaa gabadhii yarayd oo aan xaajo rageed aqoon ayaa aad u soo dhoweysay in ay gaalo laayaan maadaama oo ay ajar badan ka helayaan sidii baanay ku aqbashay odaygiina muraadkiisii u gutay
muddo waxa ay sidii ku socotaba oo odaygii da'dii ku soo baxdaba maalin kale ayaa odaygii oo rag kale ardaaga kula cawaynaya gabadhii yarayd u yeedhay. Markii uu u yimi ayay ku tidhi, ee xaajidee kaalay aynu gaaladii laynee. Odaygu wuu daalay oo iskama uusan celin karayn, gabadha yare waxa uu ugu jawaabay, naa orod naga tag, gaalada aad sheegaysid Sayid Cabdalle Xasan baa dhammayn waaye. 31 Xaji Caydiidow ana allelihi, adna iga edlii. Caydiid iyo Ceebla waxa ay ahaayeen lamaane isjecel, muddo dheerna wada joogay, nasiib darrose aanu wax ubad ah Ilaahay kala siinin. Ceebla oo ogeyd sida weyn ee odaygeedu u jecel yahay ee uu mar walba ugu hagar baxo ayaa maalin dambe waxa ay go'aan ku gaadhay in ay odaygeeda u fasaxdo inuu gabadh kale guursado si uu ubad u helo. Goor fiida markii uu Caydiid salaadii maqrib tukaday ayaa Ceebli u yeedhay, markii uu u yimidna waxa ay ku tidhi, Xaji Caydiidow ana allelihi, adna iga edli. Halkii buu odaygii gabadh kale ku guursaday. 32 Calool adayga ayaa guusha horseeda. Nin ku caan baxay geesinimo ayaa maalin waxaa laga codsaday in uu sheego sababta uu kaga guulaysto ragga marka dagaal ku dhaco. Waxa uu geesigii ku yidhi ninkii reer miyiga ahaa ee su'aasha weydiiyey fartaada afkayga dhexgeli. Ninkii reer miyiga ahaa sidii uu ku amray geesigii ayuu sameeyey, geesigiina fartiisii ayuu u dhiibay reer miyigii oo ku yidhi qaniin, dabadeed reer miyigii wuxuu aad u qaniinay fartii geesiga, geesigiina wuxuu qaniinay fartii ninkii reer miyiga ah. Waqti yar kadib waxa aad u cabaaday oo ka codsaday geesigii inuu ka qaboojiyo qaniinyada reer miyiga. Dabadeed geesigii wuxuu reer miyigii ku yidhi, ma garatay waxaan ragga kaga adkaado? Reer miyigii wuxuu ku jawaabay, maya maan garan. Geesigii wuxuu ugu jawaabay, marka ragga aan la dagaalamayo ama aan ku jiro fagaaraha dagaalka in yar ayaan calool adayga oo ii horseeda inaan marka dambe guulaysto. 33 Tuugtii beerta u dhacday. 3 nin ayaa waxa ay caadaysteen in ay xadaan beer khudrad badani ka bixi jirtay. Ninkii beerta lahaa ayaa ogaaday in beerta la gurto maalin kasta. Maalin dambe ayaa waxa uu la kulmay tuugadii oo beertiisii ku dhex jirta, waxa aanu kadinkii beerta la fadhiistay qorigiisii. Wax yar kadibna waxa beertii ka soo baxay tuugtii oo inta ay soo dhargeen haddana nin waliba wixii uu qaadan karayay gacanta ku sita. Inta uu qorigii cabaystay oo uu istaajiyey ayuu ku yidhi, waar tuuga yahay beertayda dhameeyey beerka dhulka saara, nin kastowna waxaad gacanta ku wadatid dabada iska geli. Tuugtii oo naxdin gariiraysa oo ay talo ku caddaatay ayaa kii ugu horreeyey oo watay xabad tamaandho ahi inta uu dabada iska geliyey cagaha wax ka dayay. Kii labaad oo watay xabad liin bambeeno ah ayaa inta uu foorarsaday ayaa haddana inta uu kor u eegay ninkii beerta lahaa qosol ku dhuftay. Ninkii beerta lahaa oo qorigii gacanta ku haysta ayaa ku yidhi, waar maxaad ku qoslaysaa? Inta uu qosolkiisii sii watay ayaa uu ugu jawaabay, anigoo liin bambeelmadan aan wato la yaaban ayaan arkay haddana saaxiibkayga iga dambeeya ee xabxabka wata. 34 Waxaa lagu goblamay waa tii gadhka lahayde. Nin maanso yahan ahaa oo jaajaalanimo lagu yaqaanay ayaa beri u yimi qolo ay geeri ku dhacday oo wiilkoodii curad wadkii helay. Markii geeridii loo sheegay ayaa halkii uu tiiraanyo muujin lahaa waxa uu mariyey afarlaydan gaaban isaga oo ka warramaya isba dhibaatada haysata oo ah in xoolihii ka baaba'een adhigiisiina noqday qaar xanuun u dhintay iyo qaar ildaranba waxaanu ku jawaabay. Adduunyada dhibaatiyo naxdini kama dhammaadaane. Anaba mid baa dhicisay. Oo neef ka soo dhacaye. Ridii garo ridii geeso kala jeexan. Mar aan soo dhex maray. Garana way dhogor madoobayde. Waxaa lagu goblamay. Waa tii gadhka lahayde. 35 Cambaro iyo odaygeedii. Qoys reer miyiga ayaa waxaa aradkay deganayeen isla hal toddobaad kaga dhintay labadii wiil ee reerka u weynaa. Kadib waxa ay reerkii go'aan ku gaadheen inay isaga guuraan raaskii ay deganayeen una digo rogtaan meel kale iyagoo u arkay inaanay meeshani u qaalibnayn. Markii ay meesha cusub soo degeen ayaa waxaa mar kasta u imanayay dadkii ay beesha wada deganayeen si ay ugu tacsiyadeeyaan reerka. Qof kastoo reerka soo booqdaana waxa uu ku yidhaa alihii lahaabaa qaataya iska samra. Maadaama oo ay meel barwaaqo ah soo degeen odaygii reerkuna waxa uu jeclaystay inay iska ducaystaan oo Ilaahay u shukriyaan. Goor fiid ah ayuu islaantiisii u yeedhay waxaanu ku yidhi Cambaroy wax ina soo marayba weynagan hadda iska nimcaysane waa inaynu ducaysanaa oo Ilaahay xusnaa. Cambaro ayaa inta ay soo booday ku hadashay erey alla koodnimo ah waxaanay odaygii ku tidhi Ilaahay waa kee makii afcad iga helay. Waa maalmo duniduyo. Maal qabeenka faaniyo. Miskiinkiyo faqiirkaba. Mawlaha arsaaqo. Isagay u magan yiin. Macaankeeda noloshana. Maal lahaanshihiisiyo. Maaha doolar haysee. Farxad baa u mudan kow. Qosolna waa macaanyo. Malyuun kuuma goysee. Sheekooyin maadiyo. Murti aad u wacaniyo. Madadaalo guud baan. Maanta kuu wadaaye. Darka maada iga hoo. Qoraha buuga Muuse Dalmar. Waad ku mahadsan tahay inaad dhamaysatay qabtan la soco qaybaha hadhay dhawaan. Nagu soo biir oo barta guduudan guji suulka kor u taagan riix si muuqaalku dadka ugaadho.